السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادة kanaalkeena mar labaad mar saddexaad ba waa aniga Yaasiin Qaasim Ali oo idin tabinaya barnaamijka waa taxanaheena haliyada ururka SYL qaybtiisii 8 waxaan muuqaalkan uga hadlaynaa taariikh nololeed Mudane Xaaji Dheere ee ahaa xubintii lixaad ee dhalinyarada ururka SYL. Mudane Xaaji Dheere waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadii 1926 waxaana barbaariyay labadiisa waalid tarbiyo wanaagsan. Aabihii ayaa si gaar ah u tarbiyay xagga nafta iyo jirkaba. Kadib markii uu gaaray waxbarasho ayuu bilaabay barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo xifdintiisa. Waxbarashada ayuu aad u jeclaa, ku dadaali jiray inuu kaligiisa wax isbaro. Taasina waxay muujinaysay dhiiranaantiisa iyo maskaxdiisa oo waasac ahayd. yaraantiisa xagga waxbarashada aad buu ugu firfircoonaa, laakiin markii dambe wuxuu u wacday dhanka ganacsiga. wuxuu kula noolaa caasimadda waalidkiisa. waxay isbarteen in badan oo ka mid ah dadka magaalada ku noolaa. wuxuu la kulmay qaraarkeeda iyo macaankeeda iyo khayrkeeda iyo sharkeeda. yaraantiisa horaantii dagaalkii labaad ee adduunka ayuu ganacsi u aaday bariga Afrika, isaga oo dhowr mar ku laabtay dalka Tanzania. markii uu ku sugnaa dalka Tanzania ayaa lagu dhawaaqay dagaalkii adduunka, sina waxay keentay inuu isticmaalku uu xabsiga dhigo. wuxuu ku jiray 20 cisho ah. kadib waxaa loo soo tarxiilay wadankiisa. Muqdisho ayuuna inta badan noloshiisa ku qaatay, isagoo ganacsigiisa ku mashquulsanaa. wuxuu ahaa xubintii lixaad ee ka mid ka ahaa 13 xubnood ee aasaasay ururka midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed. waxa uu ka mid ahaa dadka xamaasadda u hayay mabaadi'da xisbiga wadaniga ah. wuxuu ka mid ahaa dadkii ku dhawaaqay in la iska kiciyo gumaysiga soo duulay. wuxuu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii qowmiyadeed. wuxuu qaatay calankii wadaniyadda si looga xoreeyo shacabka dulliga, jahliga, xanuunka iyo adoonsiga isticmaalkaba. wuxuu isbahaysi la sameeyay saaxiibadiisa kale sidii cadowga looga celin lahaa muwaadiniinta aqooda. maalmihii uu isticmaalku dadka sameynaya caburinta iyo qasbidda ayuu ka tagay shaqooyinkiisii oo dhan si uu wadanku u shaqeeyo. wuxuuna la wadaagay walaalihiisa dagaalkii iyo halgankii adkaa, taasoo ahayd wixii ay shacabku doonayeen. waxaa loo doortay marar badan in uu ka mid noqdo tiirarka ugu waaweyn ee maamulka dhexe ee xisbiga. sidoo kale waxaa marar badan loo doortay maamulka hoose. ka hor inta aysan imaanin Soomaaliya, kooxdii afarta ahayd ee ka koobnaayeen wadamadii waaweynaa ee adduunka ee kala ahaa midowga Suufiyeedka, Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska, kuwaas oo doonayay in ay Soomaaliya afti ka qaadaan, doonanaya in uu wakiil noqdo golaha loo dhan yahay ee ummadaha midoobay. Xaaji Dheere waxa uu ku biiray xisbiga dhalinyarada Xamar, isaga oo ka shaqaynayay xaruntiisa dhexe inta uusan u bedelin midowga dhalinyarada Soomaaliyeed. wuxuuna noqday hay'adda xisbiga asagoo si guul ah u shaqeeyay awoodayna xisbiga dhalinyarada Xamar inuu ku socdo wadadii looga talagalay ee xisbiga midowga dhalinyarada Soomaaliyeed.